assalaamu calaykum ila dhegayso sheekadan cajiibka badan beri baa waxaa jiray magaalo aad u cajiib badnayd magaaladaasi waxaa la odhan jiray magaaladii dooxooyinka waxa ay lahayd dooxooyin aad u fara badan waxaa ku teedsanaa kaymo aad u waaweyn dhexdeedii waxaa marayay waadi aad u weyn magaaladaasi waxaa xukumayay boqor aad u cajiib badnaa boqorkaasi waxa uu necbaa dadka dhibka badan iyo dadka saaxiriinta ah dadka ku noolaa magaaladiisii aad buu ugu ilaalin jiray dadka saaxiriinta ah boqorkaasi haddii uu arko qof saaxir ah oo ku nool magaaladiisii qoorta ayuu ka jari jiray magaaladu waxa ay ahayd magaalo aad u cajiib badan waxaa deganaa dad faro badan waxaa ku yaalay qasri aad u weyn waxaa deganaa boqorkaasi waxa uu dhalay gabar aad u qurux badnayd oo la odhan jiray maariya suuq aad u weyn ay lahayd magaaladaasi dadka badankoodii waxa ay ku noolaayeen gudaha magaalada dadka fuqaradana waxa ay ku noolaayeen kaymaha ku teedsan magaaladaasi cajiibka badnayd waxa ay ahayd magaalo ganacsi dadka ku noolaa kaymaha oo ahaa fuqarada waxa ay keeni jireen magaalada waxyaabo aad u cajiib badan mid waliba waxa uu kaymaha ka keeni jiray agab aad u cajiib badan dadka magaalada deganna waa ay ka iibsan jireen ganacsatadii suuqaasii deganayd waxa ay aad ula yaabi jireen maalin waliba suuqaasi waxaa qoryo keeni jiray wiil dhallinyaro ahaa oo aad u qurux badnaa markii ay waraysteen waxa uu noqday qof cilmi badan aqli badan oo xikmad badan waxa ay la yaabeen shaqada uu ka shaqaynayo iyo cilmigiisii quruxdiisii iyo garaadkiisuba dadka suuqaasii joogay aad bay ula yaabeen wiilkaasi waxa ay ku yidhaahdeen waxa aad tahay dhallinyaro cilmi ayaad leedahay miyaad weyday caqli aad ku shaqaysato maxaa kugu kalifay in aad ka shaqayso shaqadan foosha xun wiilkii dhallinyarada ahaa aad buu ula yaabay dadkii suuqaasii joogay waa uu dhoolo caddeeyey oo lacagtii qoryaha kaga iibiyey ayuu ka qaatay wuuna isaga tegey oo kayntiisii ayuu ku laabtay maalinkii waxa uu joogi jiray magaalada markii uu iibiyey qoryaha waxa uu ku laaban jiray kaynta waayo ma uusan haysan hoy uu ku hoydo oo ku yaala magaaladaasi waxaa hoy u ahayd kayntaasi dadkii suuqaasii deganaa idilkoodii ayaa la yaabayay wiilkaasi caqliga badnaa iyo shaqadiisii sida ay u liidatay hadalkaasi wixii uu socdaaba waxa uu gaaray boqoradii boqorka uu dhalay gabadhii boqoradda ahayd oo la odhan jiray maariya waxa ay tagtay suuqii waxaa yimid wiilkii dhallinyarada ahaa oo dhabarka qoryo ku sida aad bay ula yaabtay quruxdiisii dhallinyarnimadiisii iyo shaqadiisii sida ay u liidato waxay u wacday wiilkii waxa ay ku tidhi waxa aad tahay dhallinyaro aad baad u qurux badan tahay waxaa la ii sheegay in aad tahay qof cilmi badan maxaad ugu shaqaynaysaa shaqadan foosha xun markaas buu ku yidhi miyaan tuugsan lahaa sow ma ahan in aan shaqaysto oo noloshaydii aan dhacsado markaas bay la yaabtay boqoradii waxa ay ku tidhi waa aan ku kaxaynayaa waxa aan ku geynayaa qasrigeena annaga unbaad noo shaqaynaysaa markaas buu ku yidhi waa aad mahadsan tahay anigu waxa aan ahay xor weligaygiina xor ayaan ahaan doonaa mana doonayo in aan u shaqeeyo aadane waxa aan doonayaa anigu in aan shaqaysto ma doonayo in la i amro waxa aan doonayaa in aan shaqaysto oo aan ku noolaado nolol xornimo badan gabadhii boqoradda ahayd aad bay ula yaabtay waxa ay ku tidhi adigu waxa aad tahay qof caqli badan sidaasi ay tahay waxa aad ku hadlaysaa hadalladii doqomada anigu waxa aan ahay boqorad waxa aan kuu soo bandhigay nolol aad u qurux badan waxa aan ku geynayaa qasriga waxa aan ku dejinayaa qasri aad u qurux badan waxa aad u noolaanaysaa sidii boqortooyada oo kale markaas buu ku yidhi si weliba oo aan ugu noolaado qasrigiinna waxa ay xukuma adiga iyo aabbahaaga mana doonayo in uu i xukumo qof aadane ah si xornimo badan ayaan u sexdaa ma jiro qof aadane ah oo i amraya aad bay uga carootay wiilkii dhallinyarada ahaa waayo boqorad ayay ahayd weligeedii ma ay arkin qof hadalku celinaya waxa ay la yaabtay wiilkaasi amar adaygiisii iyo kalsoonida uu isu kalsoon yahay waxa ay ku laabatay qasriga waxay u tagtay aabbaheedii boqorka ahaa waxa ay ku tidhi aabbow maanta waxa aan arkay qof aad u cajiib badan weligaadii waxa aad raadinaysay qof aniga ay guursada oo karti badan oo maamuli kara boqortooyadan markii aad geeriyooto kadib aabbow maanta waxa aan arkay
wiil dhallinyaro ahaa, aad buu fakhri u ahaa, wax weliba waa aan ka dalbaday balse waa uu iga diiday. Waxa i qanciyey oo aan la yaabay kalsoonida uu isku kalsoon yahay. Waa qof karti badan, caqli badan oo garaadkiisu aad u sareeyo. Aabbow, maanta wiilkaasi ayaan arkay, balse wax weliba aan u sheegay waa uu iga diiday in uu soo aado qasrigan. Waxa aan doonayay in aad la kulanto kadibna aad aragto dhaqamadiisii, aqoontiisii iyo kartidiisuba. Markaas buu ku yidhi gabadhaydii, waa arrin wanaagsan. Weligeygii waxa aan ku taamayey in aan helo wiil karti badan oo go'aanadiisu ay adag yihiin oo maamuli kara qasrigan boqortooyada. Waa inaad ii keentaa, waa aan arkaynaa in uu yahay qofkii annagu aan u baahnayn. Waxa ay ku tiri, aabbow, waa aan rajaynayaa in uu ogolaan doono maalinta beri ah, waayo waa qof aad u go'aan adag, balse waxaa laga yaabaa in uu fakaro kadibna uu ogolaado maalinta beri ah. Gabadhii boqoradda ahayd ee Maariya waxa ay ku laabatay suuqii. Waxa ay sugaysay wiilkii dhallinyarada ahaa. Durba waa uu yimid isaga oo dhabarka ku sida qoryo aad u faro badan. Markaas bay ku tiri, waxa aan doonayaa maanta in aadan ila murmin oo aad ii raacdo qasriga. Waxa aan kula kulansiinayaa aabbahayga. Markaas buu ku yidhi, qasrigaas waxaa loo dhisay in lagu dulmiyo dadka masaakiinta ah. Aabbahaagiina waxa uu boqor u noqday in uu dulmiyo dadka fuqarrada ah. Markaas bay la yaabtay gabadhii. Waxa ay ku tiri, oo maxaad u aflagaadaynaysaa aabbahayga iyo qasriguba? Markaas buu ku yidhi, aabbahaagii waa qof dulmi badan, kibir badan. Qasrigana waxaa loo dhisay in lagu dulmiyo dadka fuqarrada ah. Aad baan u necbahay aabbahaaga iyo qasriguba. Intii aan noolahay cagteydii ma saari doono qasrigaasi oo ay ku nool yihiin dadka daalimiinta oo idil. Gabadhii boqoradda ahayd ee Maariya aad bay u carootay. Hadalkaasina waxa uu gubay qalbigeeda, waayo ma doonayn boqortooyadaasi in wax laga sheego. Maariya waxa ay ku laabatay aabbaheeda. Waxa ay ku tiri, aabbow, ninkii aan kuu sheegayay in uu yahay qof caqli badan, xikmad badan, waxa aan arkay in uu yahay doqon kibir badan, isla weyni badan. Waxa uu aflagaadeeyey qasriga iyo adiguba. Boqorkii aad buu u carooday. Waxa uu amray ciidamadiisa. Wiilkii dhallinyarada ahaa waxaa loogu tagay kayntii dhexdeeda oo gacanta ayaa lagu soo dhigay. Waxaa la geeyey qasriga. Waxaa la hor istaajiyey boqorka. Markaas buu ku yidhi boqorkii, wiilyahow dhallinyarada ahi, waxaa la ii sheegay in aad aflagaadaysay oo aad wax xun ka sheegtay qasriga iyo aniguba. Markaas buu ku yidhi, waa runtayda, adigu waxa aad tahay qof dulmi badan oo daalim ah. Qasriguna waxa aad u dhistay in aad ku dulmiso dadka masaakiinta oo fuqarrada ah. Boqorkii aad buu u carooday. Waxa uu amray wiilkaasi in la xiro. Markii la xiray wiilkii dhallinyarada ahaa, waxa uu ku yidhi boqorka, boqorow, waxa aad tahay qof dulmi badan, kibir badan, isla weyni badan. Waxa aan sugayaa magaaladan in ay ka dhacdo musiibo aad u weyn, waayo adigu waxa aad tahay qof dulmiya dadka masaakiinta ah. Dulmiga loo geysto masaakiinta waxa aad arki doontaa jawaabteeda xilli aan fogeyn. Hase yeeshee, waaga markii uu baryeyba, magaaladaasi waxaa ka dhacay wax aad u yaab badan. Magaaladii quruxda badnayd oo lahayd dooxooyinka iyo waadiguba waxaa ku soo rogmaday daadad aad u xoog badan. Magaaladii barkeedii waxaa la tegay biyaha. Halkaasi waxaa ku baaba'ay dad faro badan. Magaaladaasi barkeeda dadkii ku noolaa waxa ay raaceen daadkii xoogga badnaa, waayo magaaladaasi waxa ay lahayd biyo xireen aad u weyn, balse roobab aad u xoog badnaa oo mahiigaan ahaa oo ka da'ay magaaladaasi hareeraheeda, iyo biyo aad u xoog badnaa uu keenay waadigii marayay magaaladaasi iyo dooxooyinkuba. Waxa uu sababay in uu dumiyo biyo xireenkii xoogga badnaa oo ku yaalay magaaladaasi bartamaheeda. Boqorkii waxa uu waaga ugu baryey magaaladii oo ka dhacday musiibo aad u weyn. Waxa uu soo xasuustay wiilkii uu xirayay oo uu ku oranayay, dulmiga aad u geysato dadka masaakiinta ah waxa aad arki doontaa jawaabtiisa xilli aan fogeyn. Boqorkii markii uu arkay musiibadaasi, waxa uu dareemay dulmiga lagu sheegayo in ay wax ka jiraan. Aad buu u yaabay, waayo meel weliba oo dulmi lagu sameeyo waxaa ka dhaca musiibooyin aad u weyn. Alle weyne jalla wacalaa kuma rido musiibada
kan dulmiga geystay kaliya, waayo musiibadaasi waxa ay saamaynaysaa magaaladii dulmiga lagu sameeyey oo idil. boqorkii waxa uu u tegay wiilkii dhallinyarada ahaa, waxa uu ku yidhi, anigu ma garanayo dulmiga aan sameeyey, waxa aan doonayaa in aad ii sheegto dulmiga aan kugu sameeyey. hase ahaatee wiilkaasi afkiisa ma uusan furin oo waxba uma uusan sheegin boqorka. si weliba uu u weydiiyey waxba uma uusan sheegin, ilaa boqorkii uu wacay qof caaqil ahaa, xigmad badnaa oo ku noolaa qasrigiisii. ninkii xigmadda badnaa ayaa u tegay wiilkii dhallinyarada ahaa, waxa uu ku yidhi, wiilyahow, waa aan u jeedaa adigu waad caraysan tahay, sidoo kale waxa aan u jeedaa in aad tahay qof madluum ah oo la dulmiyey. waxa aan doonayaa in aad ii sheegto dulmiga lagu geystay si aan ula xisaabtanno boqorka. anigu dulmi aad u weyn ayaa la ii geystay, boqorkuna waa mid kibir badan oo aan waxba hubsan. qasrigan waxaa ka shaqayn jiray aabbahayga, waxa uu u shaqaynayay ilaa 40 sano. waxa uu ahaa qofkii ugu daacadsanaa oo soo maray qasrigan, ilaa ugu dambayntii shirqool ay u maleegeen dadka qasrigan ku noolaa iyo boqorkuba aabbahaygii nafta loo dhaafiyey. aabbahayguna isagoo madluum ah waxaa dilay boqorka oo qoorta ayaa laga jaray. ninkii xigmadda badnaa aad buu u yaabay, waxa uu u laabtay boqorka, waxa uu ku yidhi, boqorow, ma jiraa nin qasrigaadii ka shaqaynayay ilaa 40 sano uguna wanaagsanaa qasriga, kadibna adigu aad qoorta ka jartay? haa, waa uu jiraa, balse ninkaasi ugu dambayntii waxa uu noqday qof aad u dhib badan oo musiibo badan. qasriguna waxa uu ku soo waday musiibo aad u weyn. waxaa la ii sheegay ninkaasi in uu isku beddelay sixroole oo uu noqday saaxir aad u weyn. uu doonayay aniguba in uu isixro. aniguna waa aad garanaysaa in aan aad u nacbahay saaxiriinta. isla maalinkii la ii sheegay waxa aan ka jaray qoorta. markaas buu ku yidhi ninkii xigmadda badnaa, boqorow, adigu aad baad u degdegtay oo waa aad fududaatay. waxaa la doonayay in aad hubsato. markaas buu yidhi boqorka, nin yahow xigmadda badani, anigu ma aanan degdegin, waayo warbixintaasi dadka ii sheegay waa dadkii ugu wanaagsanaa, ugu waaweynaa, uguna qiimaha badnaa qasriga. weligeygiina waa aan ku kalsoonaa dadkaasi. ninkii xigmadda badnaa ayaa ku yidhi, boqorow, waa inaad ii keentaa halkan dadka kuu sheegay hadalladaasi. waxaa loo wacay dadkii soo gudbiyey ninkii miskiinka ahaa in uu yahay saaxir oo uu doonayo in uu sixro boqorka. ninkii xigmadda badnaa waxa uu la hadlay dadkii uu aaminsanaa boqorka. su'aalo fara badan ayuu weydiiyey, kadibna waxa uu la hadlay boqorka, boqorow, anigu waxa aan u jeedaa dadkan inay yihiin kuwo been badan oo khiyaano badan. waxa ay kuu sheegeen been, adiguna ma aadan hubsan, waa aad degdegtay oo waxa aad qoorta ka jartay qof miskiin ah. nin yahow xigmadda badani, dadkan su'aalo ayaad weydiiday, su'aalahaaday si wanaag badan ayay kaaga jawaabeen. sidee baad ku odhan kartaa dadkan waa dadkii ka dambeeyey in aad qoorta ka jarto qofkii aad dishay? markaas buu ku yidhi ninkii xigmadda badnaa, boqorow, anigu waxa aan ahay qof aad u da'weyn, sidoo kale waxa aan ahay qof xigmad badan. qof weliba hadalladiisii waxa aan ka garanayaa indhihiisa. boqorkii aad buu u carooday oo waxa uu la soo baxay seeftiisa. waxa uu ku yidhi, haddii aad been ii sheegtaan, ogaada halkan ayaan idinku dilayaa. markaas bay ku yidhaahdeen, boqorow, annagu ninkaas waa aan ka masayrnay, waayo waxa uu ahaa qof aad u wanaag badan. qasriga oo idil waa laga jeclaaday, xitaa adigu waa aad jeclaatay qofkaasi. annaguna waxa aan ahayn dadkii ugu sarreeyey qasriga, waayo shaqaalaha qasriga oo idil annaga ayaa ugu sarreynay. ilaa ugu dambayntii uu noqday ninkaasi mid dadka oo idil laga jecel yahay, waayo waxa uu ahaa qof shaqo badan, dadaal badan, daacadnimo badan. dadkuna si wanaag badan ayuu ula dhaqmi jiray, ilaa heer ay jeclaadaan dadka qasriga oo idil. waxa aan ogeyn adigu in aad nacab tahay dadka saaxiriinta ah. waxa aan go'aansanay in aan ka dhigno qof saaxir ah, waayo adigu dadka saaxiriinta ah aad baad u nacbayd oo si degdeg badan ayaad ku dili jirtay. annaguna waxa aan ku fakarnay haddii aan kuu sheegno ninkaasi inuu yahay saaxir, in aad si degdeg badan aad ku dilayso. boqorkii aad buu u carooday oo waa uu ilmeeyey. waxa uu amray dadkaasi in tiirka la geeyo, iyaguna qoorta laga jaro.
markaas buu ku yidhi ninkii xigmadda badnaa boqorow, haddii uu ku yimaado walaalkaadii oo dhaawacan oo dhiiggiisii qulqulaya, lama doonayo in aad weerarto qofkii dhaawacaasi u geystay. waxaa la doonayaa in aad hubsato. waxaa laga yaabaa isaguba in uu soo geystay dhaawac ka weyn midka isaga ka muuqda. wax weliba waxaa wanaagsan in la hubsado, waayo degdeg waa camal shaydaan. allaweyne jalla wacalaa waa uu diiday degdega. boqorkii aad buu u qoomameeyey, balse maxaa laga gaaraa mar wax weliba uu kharibay? waxaa habboonayd wax weliba inta uusan falin xitaa uu yaraan u waraysto qofka uu horta ka jarayay. boqorkiina waxa uu u tegay wiilkii dhallinyarada ahaa, waxa uu ka dalbaday cafis. ugu dambayntii wiilkii dhallinyarada ahaa waxa uu ogaaday boqorkaasi in la shirqoolay, uusan waxba ka ogeyn, keliya uu sameeyey degdeg oo uu u dhaqmay sidii shayaadiinta oo kale, waayo degdeg waa camal shaydaan. ugu dambayntii wiilkii dhallinyarada ahaa boqorkii waa uu iska cafiyey. boqorkiina waxa uu sameeyey wax aad u cajiib badan. gabadhiisii boqorradda ahayd ee maariya waxa uu u guuriyey wiilkii miskiinka ahaa oo faqriga ahaa, waxa uuna ka mid noqday dadkii ku noolaa boqortooyadaasi. waxaasi oo idil waxa uu ku helay dulmigii loo geystay aabbihiisa. dulucda iyo xigmadda sheekada ku jirta waa mar weliba waxaa wanaagsan in aad iska hubsato wixii adigu aad samaynayso, waayo haddii aadan hubsan oo aad degdegto waxaa kuu dambayn doona murugo iyo ciil. sheekadii yarayd oo cajiibka badnayd intahay inoo joogto. walaalaha ku xiran janalka Cabdixakiin Birow, fiidiyogan haddaad ka hesheen waxa aan idinka codsanaynaa janalka in aad noo like garaysaan, aad sheer garaysaan, sabskraibna aad dhahdaan. mahadsanidin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.